xuska 28 guurada ka soo wareegtay maalintii la aasaasay ciidanka Somaliland ayaa lagu qabtay magaalada Gabiley ee xarunta gobolka Gabiley. Gaadiidka ciidamada booliska ayaa ku gaaf wareegaya jidadka waaweyn ee gudaha magaalada Gabiley. taliyaha qaybta booliska ee gobolka Gabiley oo ugu horeyn halkaasi ka hadlay ayaa hambalyo iyo bogaadin u diray ciidamada booliska Somaliland gaar ahaan gobolka Gabiley. maanta ay sanad guureysay 20 ee ciidanka aasaaska booliska ay tahay dhammaan ciidanka booliska xubnihiisa kala duwan xaasaskiisa caruurtiisa hambalyo gaar ahaan ciidanka booliska ee gobolka Gabiley waan idin hambalyeynaya ilaahayna waxaan ka baryayaa sanadkiisa caafimaad qab iyo amni iyo iimaan wanaagsan inuu inagu gaarsiiyo. guud ahaan waan ognahay gobol ahaan hawsha ballaaran ee aad u haysaan ummadda haday tahay maxay haytay mukhadaraadka haday tahay kufsiga wax kasta oo nabadgelyada wax yeelaya booliska ayaa gacanta ku haya. waxaan ilaahay ka baryayaa inuu hawshaasi idin fududeeyo oo wixii aynu wada jir uga shaqeyna shacab iyo boolisba. waa Cabdirasaaq Axmed Hayaan ilka Case Universal TV Gabiley.